بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أنو موضوعكم أقرنين يا مستمع الكرام كان ها إلهي وحن مركه هرك ويدي سنة يا إنه يوافق شيء سيدا صحي صوابك. أنت بعد قد شيخ كلمة دا إنه قال لي هل مرة إنه جاهنا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. بعدين الشيخ كلمة قيم بدن ظلم يكسب سن إلهي سبحانه وتعالى شيخ كأول مريو inagana allah inagu anfaco waxaan rabaa bal inaan maskaxdayda si dhaqso uga yara shaqaysiyo xusuusto dulmiga bal wixii aan goobjoog ka ahaa anigu waan la iga sheekayn oo dulmiga ku saabsan maalin maalmaha kamida salaad subax anigoo masaajid ku tukaday oo fadhiya abaara markay ahayd 6dii baa nin noo yimi ama waxba dhinaa daqiiqado markaas wuxuu yiri ragaan badnayn baan markaa masaajidka dhexdiisa ku fadhinaa aan isleeyahay 10 waa ka yartihiin oo teel baan u fadhinaa masaajidka nin badantiisu u fadhiyaa dabeetana ninkii wuxuu naga codsaday qof dumara oo ka xanuunsanayso ooridiisa aqalka joogta inaanu adkaar iyo quraan ugu soo akhrino aad buu noogu celceliyay war xilligan waa xilligii la kala shaqo tagi lahaa shuruuqi baa la sugayaa waqti waan ugu adag yahay markuu nagu ilxaaxiyay waa iska aqbalna waa tagnay aqalkii baanu tagnay waa guri nusbalooda 3 maqsin iyo suuliye kitchen iyo waxa ka kooban kadinka markaanu ka galnay isagaa naga horeeyay dibaddan yara istaagnay wuxuu yiri soo gudba dabeetana waa aqalkii 3dii maqsinkii u horeeyay ee bidixda sidaas u safan yihiin ayuu yiri kan soo gala kaasaanu galay qolka dhexdiisa waxba ma yaalaan wax gogola waxba ma yaalaan laakiin qof dumara baa waxay kada loobtaayoo fadhidaa raarta ama sabarka u dambeeya qolka gidaarka kada loobtaayo sidaa u fadhidaa markaas waxaan ku yiri bal daaqada yara furo si wax loo arko daaqadii uu furay waa soo galnay qof dumara waxay fadhidaa aqalka halka u dambeeyay gidaarka bay kada loobtaayo dhabarkay ku haysaa gidaarka markaas uu qofta waa xaaskaygii waxaan doonayaa inaad niman yahow bal quraan ku akhrisaan waxa waa ka garan waay arrinkeeda ilaa shalay ilaa xalay xaalkeedu ma wacnayn dabeetana waxaan ku nidhi bal ag fadhiiso oo maryahana u hagaajiyo haddii ay lacalla bal dhaqdhaqaaqdo wax iska bedelaan u diyaar garow ilaa adiga ooridaadii tahay inaad si wacan u qabato annagu qaban kari mayne quraankii baanu ku bilownay waa ku akhrinay waxoogaa markaanu ku akhrinaynay bay waxay bilowday inay sida bisada u ciido gabadhi yaw bisad ciidaysa weligaa ma aragtay annagii baa yaabnay quraan ku akhrinay quraankii baanu joojinay waxaan isnay bal hubsada horta gabadhan aad quraanka ku akhrinaysaan baa sida bisada u ciyaysa mise bisad baa qolka ku jirta horta waa ku celinay mise sida bisada u ciyaysaa quraankii baanu ku wadnay ku akhrinay waxay sida bisada u cidaba oo sidaas marba tiraahdo markii dambe caadi bay iska noqotay markay xogaa kala degtay baan su'aal weydiiyay waxaan ku yiri maxaa ku helay xagee laga hayaa sidee tahay waxay tiri shalay salaadii duhur ka hor anigoo qadadii reerka u karinaya ayaa halkan waxaa ii saarnaa dheeri biyo ah oo aan islahaa aad baasta ku karisid dabeetana anigoo suugadii iyo wixii aan samayn lahaa cadkii jarjaraya ayaa bisadii kadinka ka soo gashay albaabkoo furan dabeetana cadkii yaraayaan islaad qadada ku karisid bay la booday biyihii baylka ahaa ee baastada aan u diyaariyey ayaa intaan darsaday koob baan ka daba ordayoo kadinkaan ku gaaro waa ku shubay halkaasay ku koqtay bisadii oo nafti kaga baxday markaasaan intii koobka ku harsanaydna u raaciyay bay tiri
iyadoo caqdaa leh markay sidaa u kogtay bisadii bislaatayna waa tuuray bay tiri markaan ka soo noqday ayaa xanuunkaasi igalay bay tiri ilaa iyo xaalkayguma wacnayn wakhtigaa laga bilaabo ilaa iyo wakhtigaa arrintaasi waxay tusinaysaa qaybihii dulmiga ee muxaadarada ku jiray dulmu alcabdi lilxayawaan qofku inuu xayawaanka dulmiyo khatarta ay leedahay waa sidii nebiga sal allahu alayh wasalam habeenkii maalintii cadceeddu madoobaatay isagoo salaaddii tukinaya uu dibna u soo gurtay tallaabooyin mixraabka isagoo taagan horena marka qaarkood uu u tallaabsaday oo uu yidhi naartaa maanta lay tusay weli waxa aan ku arkay wax la mida ma arag sidaasaan dib ugu soo gurtay jannadana waa lay tusay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku arkay naarta gudaheeda qof dumar oo naarta gudaheeda lagu cadaabayo oo ay bisadii cunayso bisadaasoo ay sababteedii ahayd inay xidhay oo biyo iyo baadna aanay siin dabeetana ay xariggii ku bakhtiday bisadiioo cunaysaan arkay buu yidhi sababtii bisadaasaana lagu cadaabay sidaas marka waxay tusinaysaa in nooc khatara tahay dulmiga xayawaanka la dulmiyo waxaan kaloo aanu goobjoog u ahaa nin askarta ku jira iminka waa dhintay allah u naxariisto wuxuu ku jira qaybaha dembi baarista iyo CID-da nin xoog weynna uu ahaa marka qof la soo qabtoo la keeno dadka kabaha buurhku ku laadi jiray meel alla meeshii uu doono kaga dhufan jiray laadka rag iyo dumarba waa laadaya markaasuu dadka aad u laadi jiray habeenkii dambuu seexday qolo gaadhi ka degtay oo sadcaal dheerna soo gasho aad u daalan ayaa goor galaba laga rogay gaadhigii markaasaa loo tegayo waa lala hadlay war dadkan iska sii daayo baadna waa ka qaadaa dadka waana laaya dadkiibuu marka laad nin odaya buu si xun u laaday markaasuu dhirbaaxana ugu daray odaygii baa dhacay markaasuu odaygii mantagay habeenkii ku laba ahaa buu seexday lugta midig faryarada iyo farta ku xigta dhexdooda fin yar baa ka soo baxay finkii odaygii baa marka wuxuu yidhi iska daaya ilaahay waxaan ka baryayaa lugtaa uu igu laaday ilaahay inaanu mar dambe dib ugu tallaabsan baan ka baryayaa ninkii waxaa dhacday fin yar baa ka soo baxay labada farood dhexdooda waa fin ilaahay wato lugtii baa waxay la ekaatay wuxuun ilaahay xaalkeeda ogyahay jiif iyo joogba waa ka tegey lugtii waxaa la jaray dhudhunka xagga canqowga ka sarraysaa laga jaray xanuunkii waa joogi waayey waxaa laga jaray lowga agtiisa waa joogi waaye xanuunkii markii saddexaad baa halkaa misigta iyo lugtuu iska galaan misigtii oo dhan baa la saaray lugtii oo dhan baa la saaray gebigeediiba markuu ladnaaday oo intaa ilaahay ugu joojiyey ayuu dee bire iyo waxbuu qaadan jirayoo wuxuu bilaabay inuu birihiina qofka uu afgaran waaye la dhaco cishadii dambe labadii keliyoodna fadhiisteen isagoo dhakhtar loo wadaa naftu ka baxday dulmigoo caaqibadiisu wax sahlan ma aha haddii laga warramo wixii anigu aan ogaa oo arkay keliya haddaan ka sheekeeyo wax sahlan ma aha waxaa dhacday qof dumara ayaa inanay aayo u tahay oo aqalkeeda joogtay ayaa waxay ahayd gabarh aad u fahmad badan aqoonta waxbarashada diiniga iyo maadiga aad u cajab badan ubadkii ay inantu la walaalka ahayd inanta yaree rajada ah rajay ahayd rajo ninkaa dhalay iyadaa ka fahmad iyo aqoon badan islaantii inanta haysay inanta yareed bay la cilowday ee hooyada u ahayd shaqooyinka ugu daran iyo tacabka ugu daran bay u dirtaa waxay noqotay in jaa-isooyinka iyo waxa ugu fiican la siiyo inantan waxbarashooyinka ay si fiican ugu baasto islaantii waxay la cilowday inantii dabeetana iyadaa ka sheekaynaysa anigu afkeeda iiga sheekaysay
waxaan ku talagalay bay tiri talow sun ma siisaa mar waxaan isiri bay tiri ma gubtaa iyadoo huruda marba waxbaan ku fekeray bay tiri waxay tiri cishadii dambe waxaan isiri si yaroo farsamaysan u gub waan la fahmin dabeetana waxay tiri aqalkaanu ka shaqaynaynaa baan nidhi takfi baa guriga gashay waxaan soomaalidu takfi iyo kutaantay waxay yidhaahdaan biyaynu karinaynaa baan nidhi biyaa dabki la saaray dabeetana waanu soo qaadnay aqalkaanu ku saydhsaydhaynaa waa intaan dee dawadan iyo waxaan lagu buufiyey malaha aada loo baran kaale bay tiri igula saydhsaydh aqalka markii ay dherigii ama shaygii biyuhu ku jireen ayaan wada qaadnay bay tiri la qaad ku idhi markii aan dhulka dhignay ayaan ku sii daayay bay tiri intaa dhumada ah iyo cagay ka gubatay gabadhii dabeetana si arrintu u saamayso baan waxaan sameeyey markiiba mara yaroo halkan ii saarnayd bay tiri baan alla inantii gubatayo waa ku sii mudxiyey bay tiri dabeetana markiiba adigu inantii aad bay labada cagood uga gubatay oo farihii baa soo yaro kogayoo dee anna waa ku talagalo waa mudxinayaa bay tiri dhakhtarkaa la geeyey gabadh inantii waa la dhayey mudday jiiftay adigu iska ladnaatay laakiin farihii way yaro kogeenoo saasay yaro noqdeen qalliin dambe hawlay u baahdeen waxay tidhi inantii 6 bilood baa ka soo wareegtay maantii dambaan umulay dabeetana waxaa la dhigay reerkii neef walqalaa la sameeyey walqashii baa la bislaynaya oo la karinaya 2 neef baa guriga lagu qalay adeegii iyo hablaha ka shaqaynaya aniguna waxaan kula jiraa shaqadan wax kala qabanaya waxay tahay dheri halkanoo hilibkii ku bislaanayo iyo fuudkii sidaa u karaya unbaan jikada intaan galay bay tiri soo baxay siri intaan wax soo qaatay toobkii aan xidhnaa bay tiri meel u ka daloolay garan maaye meel unbaa dhegtii qabsatay dheriga saa un baan u jeestay bay tiri dherigii oo dhan baa saa igu yimi laga bilaabo gumaarka ilaa intaa baan bislaaday bay tiri 3 sannadood waxay u tiri kharashka igu baxay dabkayga jaga aan lahaa waan iibiyey $12,000 baan siiyey meelo badan oo deegaanka wadamada nagu dhowaa la igeeyey bay tiri dee inantii iska ladnaatoo guursatay iyadii iminka 2 bilood bay ku socotaa waa bislaatay dhaawacima baa gaadhay 2dii xaglood seedihii baa gubtay laguma soo laabmayaan markay soconayso bahalladan taayirada le bay ku socotaayo saasay ugu soconaysaa ila qofku ma tallaabsan karo xaglihii seedihii baa gubtay marka meel baanu ku kulanno markaasay iiga sheekaysay sababta arrintaasi u gaadhay dhakhtar ka baxsan waddanka maraan tegey baanu ku kulannay annagoo meel fadhinaan iswaraysanay waxay leedahay khatarta ay leedahay weeyaan khatarta ay leedahay dulmiga ama uu leeyahay dadka la dulminayo wax fara badan saxaabada waqtigoodii waa garanaysaan qoftii dumar ahayd ee ninkii saciid ahaa ee 10kii jannada loogu bushaareeyey ka midka ahaa ee islaantu dhulka ay ku qabsatay ee ashtakayseeyay dhulkan anaa iska leh oo amiirulmu'miniinkii la isula tegey markaasuu wuxuu yidhi anigu rasuulka ilaahay anigoo ka maqlay qofkii taaka dhula qaata cunaha loogu duubayaa maalinta aakhiro 7 dhul iyadoo la eg miyaan arrinkaas samaynaya golihii markii in lagu kala tago la damcay buu yidhi joog ha tegin ilaahay buu bariyey ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi inuu cimrigeedana dheereeyo indhahana ilaahay tiro dhulkaa ay sheegaysana ilaahay ku dilo waxay odhan jirtay iyadoo indhala siday maalintii dambe iyadoo hagabsanaysa ceel beertii ku yaalla bay ku dhimatay oo ku dhacday halkaasay dam ku tiri dulmigu waa fara badan yahay waqtigan la joogo waxaa ka mid a dadka dhulkooda sida kelmaddaba ku jirtay lagu habsanayo oo la qabsanayo waxaa ka mid a dulmiga guryaha ka dhacaya ayaa ka mid a ninku inuu reerkiisa dulmiyo ama iyadu dulmiso ama caruuraha aqalada jooga ee labada qof ee qoyska midun ka soo jeeda ee la keeno la dulmiyo waxaa ka mid a jiiraanka la dulmiyo waxaa ka mid a shaarka dowladda oo la isu adeegsado
oo dadkii lagu dhibaateeyo qofkii isagoo mas-uul ah baawarkiisa wax ku dhibaateeyo meelo badan buu gelayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dulmiga iyo daalimiinta labadaba ina ka ilaaliyo aan naga dhigin quraanka ilaa 200 oo mawduuc siyaabo kala duwan buu ilaahay dulmiga uga hadlay siyaaq kala duwanna iyagoo ku yimi ilaahay waxaan ka baryaynaa sheekhan inuu kelmadda ka abaalmariyo dulmigana ilaahay ina ka ilaaliyo inaha aan baan dhihi lahaa astawdiicukum allah alladhi la tadiicu wadaa'i'a